nin oo jeelkaas ku rafaadan oo habsigaas in badan joogay ku daahay hal sano ku xirnaa baan ahaa muddo sanad ah ayuu ku xirnaa saldhigga dhexe ee degmada Caabudwaaq Sandheere Ibraahin oo ah muwaadin 15 sano ka ganacsanaya magaalada Caabudwaaq sidoo kalena lacag $60,000 ah ay markaasi ganacsi ahaan u galiyay oo dad ay la lahaayeen ay ku burbureen sidaas awgeedna ay keentay in dadkii lacagtaas lahaa ay soo dacweeyaan oo la xiro muddo sanadana uusan reerkiisii ka warqabin sidoo kalena ganacsigiisii iyo wixii uu markaas gacanta ku hayayba ay noqdeen baylah qayb kamid ah dhaqaalihii intaas ku dhumay ayaa markaas deemihii yaraa ee kamid ahaa la bixiyay hase ahaatee lacagta xoogoodii wali ay taagan tahay ururka isxilqaan ee samafalayaasha ah ayaa ku soo booqday saldhigga maantay waxaana ay markaas ka hadleen oo bulshada Soomaaliyeed u direen farin ah in Sandheere halkan laga saaro oo ah markaas goob uu ku dayacan yahay intaasoo markaas bilood oo sanad ku dhowna uu ku xiran yahay waxaan joognaa saldhigga degmada Caabudwaaq waxaan la joognaa walaal maxbuus oo xiran oo xuriyad la'aan meeshan isbitaal ugu xiran stationka degmada Caabudwaaq ama saldhigga degmada Caabudwaaq walaalkaas wuxuu u xiran yahay lacag deyntuna waxaan ognahay masiibooyinka dadka ku dhacay inay qayb kamid ah tahay walaalkaas wuxuu u xiran yahay lacag $60,000 ganacsado ahaa uu ganacsan jiray dhalinyarada magaalada ka ganacsato kamid ahaa oo reer Koonfur Galbeed oo xuriyada ku haysta oo maaragtay dadka magaalada ka ganacsada dadka u firfircoon kamid ah walaalkaas lacagtaas ku gooday oo $60,000 Sandheere Ibraahin aadan lacagta $60,000 oo ku gooday waxaan u soo bandhigaynaa dadka islaamka ah meel walba ay joogaan oo luqadda af Soomaaliga aan ku hadlayna garanaya qof walba islaam waxaan leenahay walaalkaas xuriyadiisii waxaan rabnaa dib inaan ugu soo celino si qurux badan oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala aan la kaashanayna waxaan rajaynaynaa maalin dambe inaan idin soo duubno clip kale oo xuriyadiisii asoo haysta oo banaanka ku joogo waxaan rabnaa walaalkan inaan ka qayb qaadano horay waxa loo sameeyay isku day waaskiisa iyo nabadoonnadiisa ay hormud u ahaayeen isku daygaas waxa lagu helay lacag $12,000 oo qayb badeecad tahay qaybta badeecada ahayd wali badeecadii bay tahay waa iibinaynaa badeecadii inaan bedelnaan isku daynaa hadii alla idmo qaybta kale oo lacagta ah lacagtii dadkii ku dardarnaa oo lacagaha yar yar lahaa waa la siiyay dadkii lacagaha culus lahaa baa haray waxaan rabnaa walaalkaas xuriyadiisa in la siiyo waa dareemi karaan qof xabsi ku jira ummadda islaamka ana sugaya oo cabashadiisa ummadda islaamka u soo dhigtay waxaan ka codsanaynaa qof walba islaam ah gaar ahaan dadka Soomaaliyeed oo aan ku naqaan deeqsinimada iyo wax bixinta inay caan ku yihiin ninkaas inaan u gurmano wax yar oo annaga maaragtay agtanada waxba ka ahayn ba asaga wax u ah akoonka hoos ku qoran oo muuqaalka hoostiisa in kaga muuqda waxaan rabnaa qof walba wixii uu awoodo oo karaankiisa inuu ku soo tuuro walaalayaal horta Soomaaliyiin meel ay kasta ay ku nooshaa borta aad bay u salaamaya anigu horta nin maxbuus ah oo lacag loo haysto halkan ku xiran baan ahay degmada Caabudwaaq waxaan inta sugay adigu muddo waxaan xirnaa adigu sanad baan xirnaa sanadkaasna waxaan sugay dadka dadweynaha Soomaaliyeed dad idibid meel ay ku nool yihiinba baan sugayay alxamdulillah maanta Ilaahay ii suurtageeyay oo ila joogan marka dad muslimiin ah oo sahafiyiin ah oo Ilaahay samafalayaal baa ila jooga marka waxaan rabaa dadweynaha dalka idibid ku nool meel kasta ku nool gaar ahaan reer Caabudwaaq dadka yaqaan oo magalka iyo mawalka yaqaan nin oo jeelkaas ku rafaadan oo habsigaas in badan joogay ku daahay hal sano ku xirnaa baan ahaa lagu yeeshay lacag $60,000 oo lacagtii dad samafalayaal ba aad ugu dadaalay marka alxamdulillah ta'ala waxaan rabaa Soomaali meel ay kasta ay joogtaa inay soo caawiso oo lacagtaas iga baxshaan waxaan la joognaa Sandheere Ibraahin aadan oo maxbuus ku ah degmada Caabudwaaq saldhigga dhexe ku xiran loona haysto lacag deena ku go'day waliba sanadadii ugu dambeeyay oo 23 iyo 4 ugu badnaan ku go'day lacagtaas waa $60 iyo $9,000 weeye intii la helay hadda waa waxa kooban bay noqotay waqti adag baa lagu jiray dadka Soomaaliyeed oo deeq bixiyaasha waxaan ka codsanaynaa marka ninka maxbuuska ah meesha ku jira sheelada ku xiran oo deenta loo haysto inay ka qayb qaataan oo si Ilaahay dartiisa akoomada insha Allah la soo bandhigi doono oo hormuud iyo Somtel iyo Golis bile inuu walba waxa awood ugu tuuro oo caawino ninka walaalkeena la caawiyaan codsanayna insha Allah
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. marka xaaladahan oo kale la joogo bulshada Soomaaliyeed ee markaas samafalayaasha ah waxaa loo dirsadaa fariin ah in dadka sidan oo kale ah ay wax la qabtaan waxaana qaas ahaan bulshada reer Cawdaq loo dirayaa fariin ah in Sandheero oo 15 sano ku dhex ganacsanayay ay markaas ka saaraan xabsiga. Maxamed Faarax Jaamac saldhigga dhexe ee degmada Cawdaq bixinteeda ay diyaar garoween inay iga baxshaan ay rabeen waxaan iigu suurtagelin adigu halkaan aan hadda halkaasan iyo barkaas ku xiranahay meeshaan joogaa lacagtina hadda waxay ii suurtagelin iga baxayna malaha tolkayga marka waxaan u jeedinayaa Soomaali weyn waxaan soo muslimiinta dhammaantii waxaan u jeedinayaa maadaama anigu aan ku xiranahay hal sano iyo bar halkaan ku xiranahay oo lacagtii aan iga bixin weliba barta meesha ku xiranahay waxa ii maqan iyo waxa hadda waxay iga bixinayaan aan jirin waxaan rabaa Soomaali weynay inaad waxaan idinka codsanayaa inaad lacagta iga bixisaan si maanaha walaaltimo ah oo ehelnimo ah tolnimo ah aabba Soomaaliyeed baan ahay anigu hadda caruur baa iga dayacan oo halkaas sanay barka iga dayacan waxa biila iyo waxay qaataan malaha waxa anigu aan hayana malaha halkaas iyo barkaas meesha ku xiranahay aabba Soomaaliyeedna waan ahay waxaan rabaa inaad soo garab istaagtaan oo caruurtaydii aan ka warqabin aan meel ay joogaan iyo meel kale aan ka warqabin inaad waxay dad mayb waa iga bixisaan oo adigu xaaladaas iga sama bixisaan baan doonayaa insha Allah taala lambara ay meesha kala soo xiriirtaan daabshil accounti amal accounti salaam accounti iyo dahab ETC kulli wax soo saari doonaa shaashada وماسنتي أنا كسر جوابي دون تانا والدين وسيدة كله أنا كل يوم هذا أنا شبكة أصلا كجرا أبو سوماليات ما وقت أنا أودي هر سنة يبرمج بحرنا أودي عيال كيس كذا يعينين أو الحمد لله قرب استقبل بهم هاي إن شاء الله تعالى إلى كسر جوابي دون تانا سفيان وسر جوابي دون تانا